waxaa farxad weyniya inaan maanta iskugu nimaadno suldaanka mar kale haddana tabarucaad waddadii isku xidhaysay lughaya iyo calaxayd karbadadar gargaara iyo eryadaasoo dhan isku xidhaysa oo weliba runtii aan ku rajoweynahay siday hablahaasi Soomaaliyeed ama hablaha reer Awdal ee muslimiinta ee Manchester jooga ay naga soo codsadeen inaan iyadoo dokumentiyo duuban u soo duubno maadaama ay yiraahdeen aan aad loo wada garanin dhulkii oo lughaya lafteeda qaar ay leeyihiin lughaya waa halkay ku taal iyadana insha Allah taala waxaan bala qaadayaa ama suldaanka aan ka wada hadalnay inaan wiiga soo socda ama wiiga dambe aanu tagno oo aanu soo duubno halka imika marayso iyo halka ay taagan tahay haddii ilaahayno taasi waa taan u bixi doona haddii ilaahay maalmaan haddaba gabdho walaaleena oo Manchester degan oo isku tegay ayaa waxayna soo gaarsiiyeen $866 waa $866 $866 ee aad soo gaarsiiseen ee aad ugu soo tala gasheen waddada isku xidhaysa lughaya iyo calaxayd iyo eryada isku xidhaysa waa tan iyadoo $866 ay maxay ahayd ay wataa waa ayaan suldaanka diilaya ku wareejinayaa suldaanku inuu gudoomo faahfaahinna ka bixiyo bal faa'iidada ay u leedahay waddadan ay dadku doonayaan faa'iidada ay u leedahay waddadaasi dadkan lughaya iyo eryada iyo magaaladan iyo ummadda kalaba dee bal faa'iidada ay u leedahay isaguna iyo halka ay maraysana suldaanka ay nagu waramiyo injineerka waxaan codsi halkan ka jeedinayaa waddadaasi cid kastoo danaynaysa oo muxsiniina way sugaysaa ama reer Awdal ha noqoto ama cid kale ha noqoto cid kastoo muslina oo sadaqa jaariya doonaysa in la baxdo waddadaasi aad iyo aad kulli telefoonada dagala soo xidhaysayna sidaad noogu codsateen imigaba dhacday waanu gelinaynaa website-ka aad kala soo ayaad ka heli doontaan haddii ilaahay idhaahdo kayaga ka suldaanka iyo ka injineerkaba haddii ilaahay idhaahdo aad iyo aadna waad mahadsantihiin waananu idin sugaynaa sidaad bala qaadeenna insha Allah tacaala sucaad sida ay tiri waxaa tidhi waxaan tegaynaa haddii la idhaha maalmaha waqtiyada soo socda imika fasaxa markaanu galno 3 tuulo wax noocaas ii sheegayso layga yeelay bay tiri waan runtii aad lay weydiiyey waa meel magaceedu laga Haarun Cabdiraxmaan qaali degan yahay iyo adu meel kale weeyaan halkaan haddii la idhaha suldaanka wax kugu bishaaraysay inay u baxayso loogana yeelay weliba laga dalbaday oo layidhi balde meesha loo soo diray sawiradeeda iyo sida ay haddii la idhaahdo annaguna waxaanu ka geysan karnaa ka geysanay calaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan aad ugu mahadnaqayaa gabdhaha walaalaha ee sharafta badan ee maanta lacagta u soo diray jidka la samaynayo ee Turki jidka Turki awal wuxuu ahaan jiray jid reeraha iyo awto ay maraan maantana wuxuu u diyaar garoobayaa insha Allah tacaala inay gaadiidka kala qaabto isticmaalaan إذا طبعا نقدر نتكلم وحو بري مخصوصية تولد على حيل وحو أنفعية دجال بالغارة لقب بلا على حيل هوس ونقو حيلك كجد هذا البورتون اللي تابعها ترابورا ورميس علدارة بيع علالي إلا قال لك قال يدجال وين أو روكو عن أو غيره هاد دقيه أو بيرلي وحبلي ولكن أول كحنا ومضى أيوه فريا وإسلامتي waxaan u satay iyo qofkii buukay iyo keedan lahaa ay maanta insha Allah taala ka faa'iideysan doonaan aad baan ugu mahadnaqayaa gabdhahaas iyo gabadha kale waashayahay waxay ka cisay aad baan ugu mahadnaqayaa wax bilaadanku wax ku bixiyaan meelaha ugu khayraadka badnaawaya sadaqada jaariya waayo maanta gaariga ka daadegaya ummadda u buu taraya hatta awlkii awl mariyay isagoo maanta si fudud أي أمرية أرجع إلى هيك كأنه يخير هذا كل شيء
dadka walaalaha ee muxsiniinta ee waxooda ku bixinaya iskale wax kaloo la yidhaahdo ma leh ilaahay waxaan idinka baryaynaa masaajidkiina xasanaadkeena idinku daro halkaad ka soo saarteena tuko khayr badan idinku bedelo gacmo wadajir bay wax ku qabtaan bay soomaalida tiraahdaa shilin laysku daray ayaa waddan weyn inoo dhisi karaya waddadaasina istaraatiijiyad gaar ay leedahay waxaan ku boorinaynaa markaa qof kasta oo farrintaasi gaadho intii hore wax ku soo tartay inay ku daydaan oo sida ugu dhaqsiyaa badan wax yar baa hadhay haddi oo intii ugu adkayd ugu baahay marka hadhay oo buurta dhexdeeda waxa kale waa dhammaad waxaan jecel lahay markaa in aada looga gacan geysto si waqtiyada soo socdaba isticmaalkeedu ay u bilaabanto wuxuu looga faa'iidaysto insha allahu tacaala mar saddexaad aad baan gabdhaha ugu mahadnaqaya reer Manchester waxaan leeyahay waxa weeye halkaa ka sii wada annaguna waxaan ballan qaadayna dadka deegaanka haddaan xoogayagii inaan gelino oo inaan muxuu ahay marnaba wax ay ummaddu soo sadaqaysatay la sugayni annaguna xoogayagii xoolahayagii waxayagiiba aan wada gelin doono si waxaas uu inagu biradhabo waxaan ku wadaajin suldaanka billahi tawfiiq assalaamu calaykum كل إلهي بمحد سكله وحويان قبلها مارك تعطيق ذا صوت دري مركوات يمر لبات يمر ستحان من بما وقبلها سماه هذا كتاي يقبلها كله مارك تا قوي وحيو شيء تعب بلا يه مارك تا وحدي بآد يا آد بان مارك تا وما هذا قلنا ونتعيننا خاصة قبلها سعاد oo waan babaxday waxa weeyaan waa hawl hebelo wax keen markuu qofku isaga laftiisa hawl ku jira goobta waxa weeyaan ilaahay ajriya xasanaadka ka siiyo waan ka heli insha Allah waxa weeyaan halka xildhibaanku faahfaahinta uu weydiiyay horta wadadaas waa cali xayd meesha ka bilaabantay magaalo ahaan degmada Baki la yiraahdo cali xayd baa bari ugu xigta magaalo ahaan waxa weeyaan cali xayd waxa ku kulma wadada Hargeysa ka timaada ee caada soo marta cali xayd bay timaada tagabile ka timaada ee maaragta bus soo marta ee ilaahay gudban soo marta ee daadka boodka soo marta cali xayd bay timaada tabaki ka tagtaana cali xayd bay halkaas ay wadooyinku isugu wada yimaadaan markaas ay halkaayo waxay yimaadaan garbadada wadadani halkaas ay ka bilaabataa wadada garbadada marasa ayay bari uga leexan deegaan ballaaran oo xignaasaan horaba inagu sheegay ayay wadadaas marasa dhawaan ahaan kolka maaragta gargaar la yiraahdo wadada kale iyada uga dhow oo dhow 20 kilomitir bay isdheeraanka iyo isdheeriyo kolka la qiyaasay waxa weeyaan deegaanka ka sokeeya taageer ahaan waxay marasaa teebay horta ku horeynaysaa toora boora ku xigta marka waxa weeyaan gargaar halka ka tagaysaa caga kale bay cadaadid bay ka tagaysaa waxa weeyaan sawirkaan isagoo faahfaahsan hadii la yiraahdo meeshii ka waramno dul joogno waana in soo tusi doonaa ilaahay hadduu ka dhigo waxa weeyaan waa meel istaraatiijiya waa meel cid kasta oo imiga maaragtaa maamkeega danaynaysa marka ay aragto ay aad iyo aad maaragtaa inay wax munaasaba tahay u garan doonto waxa weeye xildhibaankuna aad iyo aad buu mahadsan yahay waa markii afraad ku kulana Soomaa shanaad waxa weeyaan aad iyo aad baad adiguna u mahadsan tahay warbaahinta xisaab kharashkeega isaga bixiya waxa weeyaan waa min aad iyo aad isaguna waxa weeyaan yaani hawl badan buu ka geystay jibadii wadadaasi isaga laftiisa ka sheeg imiga wuxuu yiri shidaalkana aan bixin waan tagnaa buu yiri waxa weeyaan taasi waa tagale waxa weeyaan rag badan oo wadada soo weydiiyay oo maaragta qaarad walba jooga yaa jira war wadadii waa sidii wali waxa ay gacanta kuuligu ku qabanaya gabdhaha ay wax noo soo dirayaan un baan wax ku sii wadnay iyo adago 5 kilomitir oo aad u adag ayaa noo hadho inaan aalad iyo maaragta u adeegsano cagaf weyn iyo waxaan doonano waydinkaydu ku hor ballanqaad u sameeyay waan maqanahay waydinkaydi wadadaas yaanay inagu rafanine waxa weeyaan wixii aad ballanqaadeen
walaalayaal soo dira hawsheedii sidii un baan ugu jirnaa waxa weeyaan waa wado istaraatiijiya ummaddu wada marto sida ummaddu uga guuraysa aad yaabto waxa weeyaan dadka intii taqaanaa way taqaanaa intaan aqoonna way baran doontaa insha allahu markay noo furanto tagale waxaan gooraba wixii hoos ka xiga ee dhulku waxa weeyaan dhul xidhan buu ahayo bakidan inta noo jirta ayaana waagi hore lama gaadhi jirin wixii ka sheegayna hadalkiisa badaa imiga logahaya waxaa u safrataa Hargeysa inta badan laba baabuur oo yaryar baa malaha weydiiba mariya laba taga Hargeysa uga dhawaatay oo uga wada fiicnaatay u safrada gobolka uu wada ka xidhaya hoos marka loo kaco wada ahaan wadooyinka wadada ugu muhiimsan wax ka furfurasa gobolka kala xidhnaashiisay koob ka tahay waana darki doontaa waxa weeyaan gabdhaha iyo aad baan ugu mahadnaqanaa daabiyad kastoo ingiriisku leeyahay dhowr magaalo ingiriiska ayay gabadhaasi wax ka soo dirtay wataa u socdaana see u tegaysa meelo kalena kusii socdaa wataale ilaahay uunbaa maaragtaa xasanaadka kaa siin adiga iyo inta ay inta ku ajiibtaba aad baan inagu ducaynimaalin xagga ilaahay baynu ka heli meesha juqraafi ahaanna waxa warkeeda waan inaga dhabin doonaa haddii ilaahay ka dhigo iyadoo muuqaalaan tusi doonaa aad iyo aad baan inagu mahadnaqanaa aad iyo aad baan inaguna ducaynana.